السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمة بدن وسلامتين مركزتو دنيا فيدا كجوكتان kusoo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha inta badan maanta aan kaga hadli doono kulamadii xalay laga ciyaaray UEFA Champions League PSG oo gurigeeda ku gumaada Manchester City Lionel Messi oo gool waari ah ku furtay akoonkiisa goolasha PSG Liverpool oo xasuuqday Porto Real Madrid oo garoonkeeda lagu baxdilay iyo natiijooyinka kulamadii kale Champions League xalay la ciyaaray dhanka kale ninka lagu magacaabo Rio Ferdinand muxuu ka yiri arintii lagu sameeyay Lionel Messi wuxuu yiri waa ixtiraam daro in Lionel Messi dhulka la jiifay aniga ma ogolaanin in Messi sida loola dhaqmo dhammaan natiijooyinka xalay kulamada la UEFA Champions League ay barnaamijkeena kaga bagan doontaan iyo sidoo kale dhacdooyinkii waxyaabaha cajiibka la diiwaan geliyay barnaamijka inta badan kaga hadli doonaa sidoo kale dadka markii kugu hor channelka soo booqanay subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like noo saar bal marka hore aan ku bilaawno kulamada kulanka PSG iyo Manchester City maxaa laga yiri kulanka xalay natiijada ka soo baxday ayaan barnaamijkeena ku la fogori doonaa marka hore PSG ayaa gurigeeda ku gumaaday Manchester City iyadoo laga ibar ku dubatay kulankii labaad ee wareegga gruubyada Champions League xilli Lionel Messi oo gool aad u qurux badan ku furtay akoonkiisa goolasha kooxda cusub ee PSG oo xilli ciyaareedkan haysatay xidigo waaweyn ayaa ka talaabsatay kooxda macallin Pep Guardiola iyadoo Idris Gueye uu hoggaanka u dhiibay bilowga qaybtii hore ka hor inta uusan Messi gool in qabad ah la ciyaarta ku dirin qaybtii labaad Manchester City natiijadan ayaa ka dhigan in PSG ay 4 dhibcood ku hogaaminayso group A halka Club Brugge oo iyadana 2-2 ku garaacday Lisbon ay kaalinta labaad ku jirto iyadoo leh 4 dhibcood Manchester City waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad iyadoo leh 3 dhibcood dhanka kale daawadayaasha qiimaha badan Liverpool ayaa gaartay gooshii labaad ee tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan waxayna sii dheereystay hoggaanka groupka ugu adag ee Group B iyadoo 5-1 ku soo garaacday FC Porto ay marti u hayeen 2 gool ugu dhaliyay Mohamed Salah 2 uu ku darsaday ninka lagu magacaabo Roberto Firmino oo bedel ku soo galay iyo midka shanaad uu magaciisa ku qortay Sadio Mane ayaa Liverpool ku hogaaminayso gool weyn oo ay si fudud kaga soo gaartay Porto oo garoonkeeda isku difaacan weysay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Atletico Madrid ayaa gool waqti dambe ka gaartay kooxda Talyaaniga lagu magacaabo AC Milan oo joogto gurigeeda San Siro Stadium sidoo kale toban ciyaartoy ay ku dhileen kooxda Talyaaniga markaan fiirno kooxda Talyaaniga daqiiqadii 20 ay hoggaanka qabatay sidoo kale waxa kaarka huruudka ama kaarka cas ka qaatay ninka lagu magacaabo Chiesa taasoo ka dhigtay in Milan ay noqoto toban ciyaartoy Atletico Madrid ayaa goolka barbara heshay daqiiqadii 83 waxaan u dhaliyay laacibka lagu magacaabo Antonio Griezmann hase yeeshee waqtigii dhamaadka ayaa kooxda reer Spain loo dhigay rigoore waxaana gool u bedelay Luis Suarez sidaasna ay Atletico Madrid gool qaali ah ku soo gaartay 2-1 ay ku soo badisay Liverpool ayaa hogaaminaysa groupkan waxayna haysataa 6 dhibcood halka Atletico ay ku soo xigtay ay haysato 4 dhibcood FC Porto ayaa saddexaad oo dhibac heshay kulankii koowaad ee barbaraha la gashay Atletico Madrid halka Milan aynan wax dhibco lahayn oo laga badiyay dhammaan kulamadii ay ciyaartay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan Real Madrid ayaa gool daro xanuun badan loogu xambaariyay garoonka Santiago Bernabeu waxaana dhex jidjiday koox yar oo lagu magacaabo Sheriff oo markii ugu horeysay taariikhda ay la kulmayso Sheriff waxay Real Madrid ku garaacday 2-1 sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Real Madrid ayaa keentay gool barbaro ah oo u saxiixay laacibka lagu magacaabo Karim Benzema oo dhaliyay rigoore balse dhamaadkii ay ciyaarta Sheriff dhalisay gool labaad oo aad u qurux badnaa oo banaanka ka soo toogtay laacibka lagu magacaabo Til waxaana kubadda ay dhex badbooday shabaqan kooxda aan hore loogu barin faagaarayaasha Yurub ee lagu magacaabo Sheriff ayaa hoggaanka u haysa groupkan waxayna leedahay 6 dhibcood iyadoo labadii ciyaarood ay ciyaartay ay badisay waxaana ku xigtay Real Madrid oo leh 3 dhibcood leh halka Inter Milan iyo Shakhtar Donetsk ay min hal dhibcood leeyihiin aan gudmadna daawayaasha qiimaha badan gruubyada xal la wada ciyaaray natiijooyin ka soo baxay markaan fiirno group A waxa wada ciyaar PSG naadir lagu magacaabo Manchester City waxaana PSG waxayna ku badisay 2 gool eber dhanka kale naadir lagu magacaabo Lisbon waxa 2-1 ku gadaacay naadir lagu magacaabo Club Brugge sidoo kale group B waxa ciyaareen Porto Liverpool ayaa 5-1 ku garaacday Porto sidoo kale AC Milan iyo Atletico Madrid waxay kula tagan Atletico Madrid ayaa gool gaartay 2-1 ay ku badisay markaan fiirno group C waxa wada ciyaar Ajax iyo Besiktas sidoo kale waxa guusha qaatay Ajax oo ku badisay 2-1 sidoo kale markaan fiirno Borussia Dortmund iyo naadir lagu magacaabo Sporting waxay kula tagan hal eber sidoo kale waxa guusha qaatay Borussia Dortmund oo hal eber ku xasuuqday naadiga lagu magacaabo Sporting daawadayaasha qiimaha badan waa natiijooyinka xalay labada ciyaar kulamadii ka soo wada baxay qaaradda Yurub bal markaan aan soo fiirino daawadayaasha qiimaha badan qodob ayaan idinka hayn ninka lagu magacaabo Rio Ferdinand oo furka toortay sidoo kale kooxda lagu magacaabo PSG ciyaaryahanadu ku wada tilmaamay kuwa aan waxba lahayn oo dhigleen maxaa yeelay laacibka u qaalisan dunida kubadda cagta Lionel Messi ay dhulka jiifiyeen Ferdinand oo furka toortay wuxuu yiri waa ixtiraam daro in Lionel Messi dhulka la jiifiyo aniga ma ogolaan in Messi sida loola dhaqmo
daawadayaasha qiimaha badan Lionel Messi ayaa ku riyaaqay habeenkiisii ugu fiicnaa isagoo u ciyaaraya kooxda PSG kulankii ay xalay la ciyaareen Manchester City ee Champions League. Halyeegan ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda PSG kadib markii uu kooxdan ku soo biiray bishii hore. Messi ayaa kubadda ka helay meel u dhow xariiqada bartamaha wuxuuna u dhaqaaqay dhanka goolka ka hor inta uusan kubadda geeska kore shabaqa ka dhex dhigin. goolka Messi ayaa ka caawiyay PSG inay 2-0 ku garaacdo kooxda Pep Guardiola. Idris Gueye ayaa hoggaanka u dhiibay kooxda martida loogu ahaa garoonkeeda daqiiqadii 8aad. dhamaadka ciyaarta Messi ayaa loo dhiibay shabaq lama filaan ah isagoo seexday dhulka kana dambeeyay darbigii PSG ee difaacanayay laadka xortka oo Manchester City loo dhigay. sidoo muuqaalkan ee Messi la dhihi karo waa ciyaartooyga ugu weynaa taariikhda oo darbiga gadaashiisa jiifa ayaa dareen badan ka dhaliyay baraha bulshada. si kastaba ha ahaatee daawadayaasha qiimaha badan daafici hore Manchester United lagu magacaabo Rio Ferdinand ayaa rumaysan waayay in Messi uu ka qiimo weyn yahay in laga dhigo shakhsi jiifta darbiga gadaashiisa. markii uu Pochettino weydiisanay in Messi uu sidaas ku sameeyo garoonka tababarka waxay ahayd inuu qof yiraahdo maya Lionel Messi waa xaas ma sameynayo waa ixtiraam daro ma ogolaanin aniga ayaa sidaas dhihi lahaa ayuu yiri. haddii aan ninka lagu magacaabo Rio Ferdinand ayaa haddii aan kooxda ka tirsanaan lahaa waxaan dhihi lahaa dhageyso aniga ayaa dhulka jiifanayo waan ka xumahay ma ogolaan leen in sidaas loola dhaqma in dhulka la jiifay ki ugu qiimaha badnaa kubadda cagta. sidaa daraadeed waa ninka Rio Ferdinand ayaa farka turtay. sidoo kale ciyaaryahanada PSG ayuu u soo jeeday. haddaba daawadayaasha qiimaha badan ku raacsantiin Rio Ferdinand inuu yiraahdo waa ixtiraam daro in Messi dhulka la jiifiyo ama gadaarka dambe la jiifiyo. haddaba maxaa ka leedahay sawirkan ayaa baraha bulshada maanta qabsad ilaa xaleeto maadaama Lionel Messi dhulka la jiifiyay sidoo kale gadaar laga dhigay. aragtidaada comment inoogu reeb. waxaa halkaas inoogu dhan daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena inta badan kaga hadlayna arrimaha kulamadii xalay labada ciyaar UEFA Champions League. sidoo kale deeta markii kuuri channelka soo booqanay subscribe noo saar. sidoo kale aragtida comment inoogu reeb. sidoo kale muuqaalka like inoo saar. sidoo kale sidoo aragta in barnaamijka ciyaarahan dib u soo celin oo hadda kadib channelkeenu si dhila uga bixi doono. sidoo kale barnaamijkeena fanka kama marna sida daraadeed sidoo aragtada comment inoogu reeb. intaan ku kulmayno barnaamij lamida daawadayaasha qiimaha badan. amaana Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.